maama waxaa lay dhahaa Luul Maxamed Cabdi. qof oo guri oo iska lehen oo degan oo beeraheedii iyo guryaheedii iyo dhulkeedii ka soo tagtay aan ahay. nolosha caadi ma aha, aan iska dhibaataysan yahay. dhar alla dhaqo, inta laga baxo, ilmihii wixii dhaleen la isku rafaado. ani barakac horta waxaan kasoo bilaabay buulibirtaan kasoo bilaabay jowharaan soo degay. jowhar noloshii caadi waa ku noolaa waaye, haddana cariiri dhibaato kale intaa la soo galay. ilmihii xamaran oo la soo galay meel masaajidka intiga liiraha aan degana. ilmahana aniga ayeeyo u ah, anaa aabbo ilmihayga agoon waaye. ayeeyana waa ah, hooyana waa ah, aabbana waa ah. waxbarasho ma jirto. ilmaha dugsi quraan oo diriska in ay dhigtaan oo dugsi oo macallin oo la iska baryo, macallin maanta laba bil ilmi ku lahaado mar dugsi laga soo raacdayo yaa iskool sheekadiis iskaba dhaaf. iskool sheekadiis iskaba dhaaf. ilmaha ayeeyo ay waaya iskool sheekadiis iskaba dhaaf. dugsi quraanka yaa laba bil saddex bil isku tagaysaa. saddexdii bil labadii bil macallinka la soo raacdana macallinka loo tagaa leeyahay macallin raal ayaanta waa naga jiiftaa. hadda ilaahay macna si wallahi billahi ummad badan waa garab qabalahay, islaam badan waa garab qabalahay. anaka qaxootiyana barakacana dhulkaas dheeraan ka nimid, taraak dheeraan ka nimid. alla kuma darnaado guriga oo leedahay guri barakaca oo masaajidka hindiga dhex degana. guri aad leedahay ma ahan, yaa gurihii beeri meelaha laga soo kacay. ilaahay ku darnaade ilaahay ummadda khayr alla siiye. waxaan ku dardaarmaa inay noola soo fiiriyo masaajidii aan barakac ku nahay, aan qaxooti ku nahay, aan waxba ku haysanin. waa yeelaa noo joogo meesha, yaa duqowshaa noo joogo, ilmo yaraa noo joogo, wax lagu haayo male. in noola soo fiiriyo oo dawladana soo aragto oo noola yimaado nolosha lagu nool yahay soo aragto ayaan jeclaan lahay.